السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامة ولا ولاasheen uma Isra Decor maanta waxaa idin soo sameeyay video aad la iga soo codsaday abaayooyin badan wallahi la soo hadleen codsigoodii mataqaana ayaan ku soo sameeyay videogan otherwise uma diyaarsanin maanta inaan video sameeyo waan shaqeynay aadna waan u mashquulsanaa laakiin aniga oo mataqaana tixgelinay abaayooyinka codsigooda ayaan mataqaana isku dayay in aan uga soo jawaab su'aalahooda una sheego waxyaabihii oon aniga aan sameeyay si igu suurta gashay abaayooyin badan ayaa waxay soo weydiiyeen igu dhahan abaay adigoo ilmo haysatid sidee waxaan alaab oo muraayad u haysan kartaa wax sharaxaad sidee meelaha dhan ugu dhigdhigan kartaa falaawasyada ilmaha say u dhaafaan sharaxaad ilmaha ma qaadaan miya barkimaha ilmaha baay ma ka jeexjeexayaan miya waxyaabahaas oo dhan ayaa la soo weydiiyay marka walaalahay hadii aan ka jawaabo su'aashaas oo midaas ah walaashay qaali waxaa la dhahay alif axmaalaha ka halaabo albaqrada kama tooso marka weligaa ma ku suurta galaysa ilmo gaaray 6 sano ama 7 sano ama 10 sano inaad meeshan inta falaawa u soo dhigtay aad dahdid dhaaf gurigan ku qurxinaa horta first of all waa inaad ka soo bilowdo ilmaha markuu yar yahay inaad from yani marka ugu horeysaba aad ku soo bartid inuu waxaan guriga uu leeyahay oo waxaan guriga lagu qurxiyo oo waxaan ay tahay inuu meesha siyaalo ee muhiim noo tahay quruxna noo tahay ما فهمتين markii ilmaha aad intaas u sheegtid yani ilmihi ma ku dhahay ilmo waxaas qurux waaye dhaaf dhahay uu dhaafano ma ahan sidaas laakiin markuu meesha ka qaado waa ku soo celinay waa u sheegay haduu ilmaha wax jabi ha ku qaylinin hooyo waxaan meesha qurux inoogu aha maxaa nooga sameeyeen maxaa nooga jabisay dadka wuu u qurxoon yahay anaga saan maxaa nooga yeeshay waxyaabahaas oo kale ayaad ilmaha dhahay ilmihi wuu la qabsanaa wuxuu jeclaan inuu guriga ilmaha oo guriga u qurxoonaado ayuu jeclaana ilmihi wuxuu jeclaana inuu wixii kula sameeyay xitaa ani gabadheeda been ma sheegay kala maami waxaana sameeynahay kan igu caawi aan iska dhaano niyadu dhisay masuul ayada saaraa ma fahanteen hal falaaba u dhiiba ama hal marada oo maryaha oo lagu tirtiro muraayadaha oo kala hal xab ayaan u dhiiba marka aniga mid sameysanahay aad muraayada ay tirtira dhaha ana tana tirtirana soo ani dhinacayga kala shaqadeeda ka qabsana tii ay ugu falfalaadan hadhow kaligay ayaa aniga sameysana ma fahanteen marka ilmihi masuul saar ilmihi waxaan inuu normal yahay u sheeg adiga hooy aan hada wixii saska qabtid oo hadda ani ay idhaysin waxaan anaga ma walaalay ma nagu ciyaare anaga ilmaha noo joogo waxaan ma noo soconayaan waxaan ma of course way ku soconay aniga ilmo u jooga ilmo la'aan ma ihi abaayeen badan ayaa jiro oo guri qurxiyaan iyaga ilmo u jooga of course ilmihi waxa ina bartid kaliya ka raba the only thing oo ilmahaas waxa ku fahmaayo waxa waaye in aad bartid aad normal uga dhigtid ilmaha adiga inaad guriga qurxisid ayagana ay qurux alaab la'aan ahaadaan ma ku soconayso marka adiga gurigaaga qurxisid ilmaha asagana waa inaa wax uu ku ciyaaro aad siisid oo qol uu leeyahay markii mataqaana qolkooda ilmihi uu hal sariir yaalo iyo halkii koomadiini nalki adigana aad dhayso guriga quruxsanaa never inay taas ku socoto gurigaaga inta aad ku qurxisid ilmaha asagoo inta oo lagu ciyaaro asagana waa inaad siisid ana hadda jika ay taalo cuntada lagu kariyo jika yaro beenbeena qolka igu jirto aniga waxaan sameystaa casharaan ka shaqeystaa iskuulaan dhigtaa maanta waxaan qoranayaa of course ilmihi way yaryar wax qorid ma gaarin laakiin wixii aadan daycare kuna lagu ciyaara marka aan marka wax qoraysa iyo mashquulin sabuurad weyna meesha usoo dhex dhigay sabuuradan waxaan dhahay adiga wax ku qoro anigana halkaan wax ku qorana labadeena wax isla barano maxaa ku soo haray guriga kaleeto alaabihii digsiyaashii saxamaankii waxaas ayagoo miini ah oo ilmaha loogu talagalay oo raqiis ah ayay buuxaan beema idin sheegay wallahi maasha Allah na aadaho wax kasta meesha aan saar ayay yaalaan gabadheeda halka sano jirto markii laga reebo taas waa ilmo aad u yartahay wili waxaan ku jirnaa processki ee wixii ku fahmeysay laakiin maasha Allah ilmihii kala aabartay hatta walaaladay yani way barteen waxaan inay meesha leeyihiin waxaan ay halkaan leeyahay marka wixii horta qofka weyn oo hooyada ah inuu ku dhiirato waay waxaan waa keensana waa u baahanay ilmahan inay bartaan waay ilmaha waa xanshi cad ilmaha waa xanshi cad wixii aad ku qortid ay xanshidaas ku weynay wixii aad bartideen sidoo kale kuugu dhaqmay ma fahantay ilmihi markuu ilma barkima tuuriyahay oo ilmo wixii dhan tuuriyaynayo guriga ku ciyaaraysan yeelay goorme ilmahaas aad soo dajinay maskaxdiisa oo aad u bedelay inuu waxaan aqbalo waa waqti aad ka dahday maybe inay ku socno ilaa ciyaar canugaas uu ka weynaado qof degan weyn uu noqdo inay ku socno laga yaabaa marka walaalaha ay weydiinay mar walba waxaan dhalada say u haysataa darbiga say dhalo kuugu dhagan tahay TV laga ma jabinayo ma darbiga ku xirtid
way soo martay ani TV mar waxa soo martay 3 bil gudaheed TV-gayga oo 6 mar la jabiyo ma fahanteen 2018 3 bil gudaheed TV-ga 6 mar la iga jabiyo ilaa shirkadda TV-ga aan ka gatay ay dheen dibta kuma sameeyeen soo jaban hayso marka wixii samra u baahan tahay inaa sabartid ay ilmaha bartid TV ma qasaas la iga jabiyo aniga gabadhii sabtu jabisay 2 sano TV ma gadanin TV 2020 ka soo dhiganay marka 2 sano 18 dhexdiisii ilaa iyo 19 oo dhan TV maan haysanin 20 TV aan usoo gado aan ugu soo horeysay ma fahamtay way 6 mar iga soo jabisay gabadheeda waa iska dhaafay waa amaan iska siiyay TV la'aan iska joognay ayadoo hadalka ii barato degtay oo TV iga bariyayso aan TV soo dhiganay ma fahamtay muraayadaas geeska ii taal abaayoon badan waxay u maleynaa hadda gatay oo idahayaan muraayadan cadse ku muraayadan oo muraayad si fadhiga kugu taala ilmaha madax iska dhaqraamiya ilmaha saam isku yeelaamiya muraayada markii la aroosay la ii gaday ma fahamtay alaabtii la igu aroosay ku jirtaa noot wax cusub hadda soo iibsaday ma ahan abaayoon kale waxay dhahan sidee sharaxaad miiska u saaran kartaa abaay maxaa u saaran weysay wax kasta waa samayn kartaa hadda aad rabtid oo ada ileen ilmihii ka weyn oo dhalay adiga hadii aad rabtid ilmahan way ka dabarabayaan waliba ilmaha waxa bare inta saan kale u hagaajisatid fadhiga oo wax dhan hagaajisid casriye u soo karisid aad bustayaasha riiriska fadhiga geeska laga saartay adiga dhan waa soo saartiin meesha soo fadhiisatiin TV ina ku fiirsatiin meeshaas sharaxadiino idin saaran casriyihiin aad ku siisatiin ilmaha casriye yani wax daadanayo kale ilmaha of course way ka daadan karaan laakiin waxyaabaha kale oo easy ah oo wax qoyaan aan lahayn oo kale inaad siisatid marka mastima aan ilmihii aan dhalnay aan ka baqno insha Allah abaayoon badan waxay yiraahdeen ilmihiga iga jabinayo ilmaha ka jabinayo wax la isku iloow ilmaha wax way jabiyaan marka la soo gadan kartaa waa bare hooy mar iga jabis marka la iga jabinaa dheh insha Allah waxa jirto video kale aan sameeyno oo ku gada jiro oo aan taqaana abaayoon badan aan uga faa'iideyn doono abaayoon waxay dhaheen walaalay horta maxaan kala bedelnaa maxaan wax bedelnaa maba naqaana wixii base-kii ayaanan ogeyn waxa aan soo gadanayn ayaanan ba aqoonin marka taasna insha Allah waa soo sameyn doona fadhi iyo chief iyo mataqaan roog marka laga soo tago inta kale waxyaabaha base-ka oo color iyo wax marka laga soo tago abaayo walba ay u baahan tahay inuu gurigeeda yaalo ayaan ka soo sameyn doona video wadu Ilaahay idmo kadib iyo waxaba color ina bedeltiin waxyaabo kala bedeltid step-ka xiga ayuu noqon doona laakiin step-ka koowaad wuxuu yahay waxa aad u baahan tahay abaayo badan wuxuu kale waxa siblaaya haysatay gabar aan qaanan ku arkay markaas ayaan soo iibsaday horta hiblaayo iska iloow hiblaayo wixii base-kinu u yaala laga yaaba oo wax kale to extra ay soo gadatay laakiin adiga base-ka uu ka maqan yahay adigana extra ay soo gadatay aksoo daba gadatay marka sheekada hiblaayo iska iloow insha Allah anigan ayaan idin soo sheegi doona waxyaabaha u baahan tihiin video kale ayaan idin kaga soo sameyn doona haduu Ilaahay idmo walaalahay gambaleelka furta iguna xirnaa subscribe noo wada saara hooyooyin badan oo iga badiyeen ilmaha sideen yeelna ilmaha sideen kan insha Allah cashirkaas ilmahan halkan kuma joogsan doono waan isla socon doonaa haduu Ilaahay idmo inta la gaaraan qeyr badan ayaan idinkaga sii tagayaa walaalay qaaliga